nidaamkii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer weerar ku qaaday xubno ka mid ah mucaaradka. xubnaha gaargaarka xilligaasi loo weeraray waxaa ka mid ahaa xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur, halka wadajir loo weeraray shariif sheekh axmed, xasan sheekh iyo shariif xasan sheekh aadan, tiyo sidoo kale la weeraray xubno mucaarad ahaa oo banaanbaxaya xilligaas. muddaxileedka labaad ee madaxweyne xasan sheekh waxaa dhacay wax badan oo uu kala mid yahay nidaamkii hore ee Farmaajo, laakiin xasan sheekh waa lagu kari waayey inuu mucaaradka soo weeraro si walba oo dowladdiisa loo jirjiro. qaar ka mid ah xubnaha haatan ka soo horjeeda nidaamka madaxweyne xasan sheekh ayaa dhowr jeer idaacadaha ka sheegay iyagoo la wareysanayo inay xasan sheekh u dhiman tahay inuu weerar hubaysan ku soo qaado. laakiin ugu dambayn mucaaradkii waa sugi waayeen ilaa intuu xasan sheekh ka soo weerarayo, taas beddelkeedana iyaga ayaa galabta weeraray saldhigga degmada Warta Nabadda. laba ujeeddo ayay mucaaradku ka lahaayeen weerarkan. midda koowaad waxay ahayd in xasan sheekh eedaha loo haysto lagu daro inuu mucaaradka soo weeraray, laakiin sida ay qorshaha u maareeyeen ayaa wax walba kaga ciyaartay mucaaradka. hadda xubno ka mid ah mucaaradka ayaa isku dayaya inay dadka ku qanciyaan inaanay iyagu xabadda bilaabin, laakiin in hub sidaas u badan lala aado goob ay xasarada ka jirto waa caddaynta inaadan nabadoon ahayn. haatan madaxweyne xasan sheekh ma la dhihi karaa wuu barbareeyey Farmaajo dhinaca weerarka mucaaradka? jawaabtu waa maya, ee mucaaradka samata bixinta la baxay ayaa helay taariikh cusub oo ah inay yihiin mucaaradkii koowaad ee weerar hubaysan ku qaada xarun dowladeed. hadafka labaad ee ay mucaaradku weerarkan u qaadeen wuxuu ahaa inay hoos u dhigaan saamaynta khudbadda uu madaxweyne xasan sheekh ka jeedin doono shirka qaramada midoobay, kadib markii uu wax saamayna yeelan waayey qoraal ay 22kii bishaan soo saareen xubnaha mucaaradka ah ee la baxay madasha samata bixinta. ma cadda inuu weerarkii galabtu jeexi doono miisaanka khudbadda madaxweyne xasan sheekh ee meertada 88aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.